maanta taariikhda 16 January 2016 xafiiska wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska anagoo dhex taagan waxaanu bulshada qaybada kala duwan ku wareejinaa baaskiiladii xoriyamiinta sidoo kale dawladda hoose degmada Berbera waaxdeeda arrimaha bulshada waxaan ku wareejinaa 150 kartoon oo bariiskii caruurta kaasoo ka kooban kin nafaqeynta anagoo markaa fulinayna qorshayaasha wasaaradda hormuudka iyo wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta injineer Cali Xorxor anagoo fulinayna qorshayaasha heer qaran waxaan maanta Ilaahay mahadi aan noo suurta gashay inaan qayb ka mid ah bulshada gaarsiino baaskiilada wheelchairsa oo ugu tagan dadka curyamiinta ama aan kici karin inay ku socdaan marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid kasta markaa qayb ka qaadatay oo kamid yihiin dawladda hoose oo nala qaybisay oo qayb weyn ka hayna marka maanta suurta gelino oo qaybino iyo hay'adaha iyo gudiyada xaafadaha sayka iyo gudiyada xaafadaha iyo kuna marxaati ka hayna marka maanta arkayaan wixii la soo gaarsiiyay inuu gaarsiin bulshada u baahnay waliba intii ugu muhiimsanayd wax kasta marka qaranku day awood u helo bulshada u gaarsiinaya wasaaraddu soo gaarsiinaysa haba yaraadabe marka waxaan uga mahadnaqayaa wasiirka iyo dhammaan wasaaradda shaqo-gelinta mas'uuliyiinteeda oo qayb weyn ka ahaa gaar ahaan agaasimaha waaxda naafada oo soo qayb ka hayna marka alaabtina soo gaadho oo soo qorsheeyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan u mahadnaqaynaa inoo suurta geliyay maanta inaan bartan ku qaybino alaabtan oo laba nooc ah laba qaybood ah marka ma hadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka bacdi waxa halkan ugu mahadnaqaynaa mar labaad oo na soo gaarsiiyay deeqdan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska oo na soo gaarsiisay raashin caruurta ah oo nafaqo leh iyo wheelchairka lagu talagalay dadka curyamiinta cagaha ka socon karin oo laba qaybood ah qayb dadka caruurta yarara iyo qayb dadka waaweyn oo Ilaahay mahadi maanta halkan aad arkaysaan aan ku gudoonsiinay maanta raashinkaas oo aan ugu talagalay dadka xanaanooyinka aan ugu talagalay magaalada isla markaana aan ku sii wareejinay waaxda qaybta caafimaadka ee dawladda hoose oo la geyn doono masaajidda magaalada si loo siiyo hooyooyinka uurka leh ama hooyooyinka caruurta yar wata nafaqa darrada raashin nafaqaysan oo dhowr nooc isugu jira waxa kaloo u mahadnaqaynaa gudiyada xaafadaha nagala qayb qaatay hawshan oo inta soo qoritaanka dadkan iyo gelitaanka bulshada qayb muhiim ka ahaa iyagana mahad gaar ah u celinayna iyo cid kasta oo qayb ka ahayd hawshan maanta inay fusho bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay oo goobjoog ka ahay iyadoo maanta dadkii ugu nuglaa magaalada loo qaybinayo agab ay aad ugu baahnaayeen dadka naafada ah waxa weeyaan dadka ugu nugul maxay ahayd qoys ahaan marka la eego xaafadaha waxa ku nool caruuro fara badan baa jiro guryaha lagu qariyo naafo ah oo aanay dadku ogeyn oo xogogaal aanay u ahayn maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dadkii nooca ahaa oo hoos loo eegay la ogaaday lana siinayo agab ay u baahnaayeen marka hore Ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo door muhiim ah ka ciyaartay sidii dadkan wax loo gaarsiin lahaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa isuduwaha wasaaradda oo nin dhalinyaro ah aad u firfircoon shaqadiisa yaqaana aad uga warhaya bulshada iyo dadka nugul ee danyarta ah oo intii muddadii yareeyay maanta uu wasaaradda joogay isbedel weyn marka aad ka dareemayso dhaqdhaqaaqa iyo sida dadka maaragtay loo caawinayo aad baan ugu mahadcelinayaa isuduwaha farxaan waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Allah kuu saaro shaqo kasto aad qabato bulshada dan weyn baa ugu jirta annaguna haddii aan nahay ururadii bulshada gaar ahaan ururka anigu aan ka socday Soyka waxaan si weyn isu barbartaagi doonaa oo aan aad ula shaqayn doonaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wax kasto ay magaalada ka qabanayso horena waan ula shaqaynaynay maantana markaad aragto qof firfircoon oo meel walba kaaga horeynaya waxa ku galaya adigana niyad wanaag iyo dhiirigelin far badan baad helaysaa waxaad arkaysaa inay dad danaynaya ay joogaan arrimihii bulshada oo dawladana ka tirsan waxa weeyaan saaka halkan waxa lagu siiyay deeq ama yacni agab loo baahnaa dadka curyaamiinta ee u baahan gaari curyaanka oo laba qaybooda caruurta yaryar iyo dadka waaweyn iyo weliba
raashin nafaqo leh oo loogu talagalay dadka maxay tahay nafaqadooda hooseyso ee u baahan kaasoo weliba la sii daadejinayo oo maxay tahay xanaanooyinka lagu xidhayo si cid kasta oo u baahan loogu soo wacyigeliya inay halkaa ka qaataan oo loo geynayo xanaanooyinka intii joogtayna la siiyey saaka deeqdaas oo ay wadeen ama ay na soo gaarsiiyeen xaafadaha iyo dadka u baahan ay soo gaarsiiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha qoyska iyo dowladda hoose iyo weliba guddiyada xaafadaha oo iyaguna kala qayb qaatay sida ay dadkii u baahnaa intay soo xulaan goobtan u soo gaarsiiyeen ay keenaan si ay u helaan ay u guddoontaan ayaan saaka halkan aanu ku qaybinay waxaanan u sheegayaa cid kasta oo horta keentay way mahadsan tahay waanan u mahad celinaynaa waayo dadkaygaanu la dareennahay wixii dadkayga jilicsana helo ayaa annagana dantu noogu jirtaa haddaanu nahay guddiyada xaafadaha oo aanu yacnii wax kasta oo aanu keennaa ama aanu soo xulay sidooda ay u fulaan baanu jecel lahay cid kastoo na soo gaarsiina waanu mahadnaqaynaa waa ilaahay maadi dadka iyo dalka iyo wax walba waynu ducayna yaa markaa waxaan u baahnay laakiin si guryaan loo dhibay hadle iyo dadkii waxaa noogu tabcay si wanaagsan ayaa naloo siiyey baalihii curyaaminta dadka naafada ah alxamdulilah aan kici karaynin dee waanu wanaagsannahay waana naga qaadanay fuushan